kulanti wacan oo wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal stuudiyaheena magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka waxa galabta noogu martiya oo nagu soo booqday stuudiyahan Professor Ali Samad Ali aan dhahdo Khaliif Galeyr Ali Khaliif Galeyr waxa uu ka yimid xilligani Afrika amaba waddankii Soomaaliya waxaana booqasho ku yimid isagoo reerkiisu ay degan yihiin meeshana ku nool waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota markuu u warsa Ali aad baan kugu soo dhaweynaya stuudiyaheena iyo waliba magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota aad iyo aad bad Ali u mahadsantahay inkastoo aad ku noolaan jirtay waayahay Ali Khaliif Galeyr waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inkastoo sida aan aad sheegtay muddo bil aad ka sokoysay waddankii haddana bal ammaanka guud ee magaalada Muqdisho inaad wax yar ii sawirtid alow runtii bil ka badan waa u maleynayaa hadda intii Ramadaan toodhan Ramadaan waxay igu bilatay waxaan u maleynayaa magaaladaas Nairobi midaan weekii ugu horeeyay Nairobi aan joogay intii ka bacdina waddanka Mareykanka aan joogay khaasatan magaalada tan intii shirarkii sanad ka hor abaabulkii ka socday xamar iyo maamulkii Sheekh Shariif madaxda uu ka ahaa iyo ciidamada Amison wax badan bay qabteen markaana waxa muuqatay ciidamadii shabaab in xooggoodii ay ka baxeen xamar ilaa Afgooye iyo shabeellada hoose iyo ilaa Balcad aagaas intaa in ay gacanta ciidamada qaranka iyo kuwa Amison ay gacanta ku qabteen haddana magaalada lafteeda qaraxyo iyo rasaas badan oo dhacday iyo waxaas ma ayan jirin intii hadda ayba anigu aan ka imina waxaad moodaa waa joogay mararay qaraxyo dhacayeen oo meelo la abaaray laakiin inay wixii sida u dhacayeen ay ka soo bateen ficilkeena ay qaadayeen ciddii uun howlahan wada magaalada xamar warka lagu hayaana marmarka qaarkood waxa la leeyahay boqolkiiba boqol shabaab ma aha qaraxyada magaalada ka dhacaya siyaalo kale oo laga yaabo de aan cadayn aad moodaa qaarkood inay yihiin laakiin waxa sugan in habka ay qaraxyadu u dhacayaan habka ay meenooyinka loogu aasayo magaalada habka hoobiyaha lagu garaacayo habeenkii magaalada ilaa madaxtooyada iyo habka dad gaar ah oo la tilmaantay oo la dilayo intuba inay soo badatay kulley boqolkiiba boqol dowladda kulley wixii mas'uulun baa lagu eedeynayaa waxaana uun hadda la isku raacsan yahay oo dadka Soomaaliyeed hay'adahan dastuuriga ama baarlamaanka ama xukuumadda ama ciidamada iyo shacbiguba iyo qoliyahan international community-guba ilaa heer waxa la isla qirsan yahay maamulkan maanta jira sidii loo rabay inuu hawsha meesha Sheekh Shariif iyo maamulkii wargaarsiiyeen inayn ka sii wadin oo aad si u moodo inayan ama iyagu isugu duubnayn ama war ururintooda iyo fulinta wixii talaabooyin marka loo baahan yahay inayan wali isugu dubadhaan todobaadyadii u dambeeyay Ali Khaliif Galeyr kooxda Al-Shabaab xamar waxay ka sameeyeen qaraxyo iyo weeraro meelihii ay bartilmaameedsanayeen qaar kamida way u hirgashay inay qarxiyaan ama ay dhibaato geystaan waxa ka dhacday khasaare muuqad iyo noolba leh runtiina dadka Soomaaliyeed ay ku noqotay mid murugo leh oo aad uga sixmaadaan dawladda uu hoggaanka ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud marka la eego uu ku muuqata habacsanaan aan oran karayno si toos ah uguma goona in kooxda Al-Shabaab ay iska dhiciyaan oo ay foolka fool ula dagaalamaan ma aan kulley war buuxa oo suganna kama wada hayo siday wuxuu jiraan waxayse ugu muuqataa dadka u kuurgala arrimaha Soomaaliya khaasatan arrimaha nabadgelyada inayn dawladdu ama khibradii iyo awoodii ay u baahnaayeen loo baahnaa inay meesha la gola iman inay uun jirto waagii isbedelka ee qoliyaha madaxda saraakiishii ka madaxda ciidamada iyo khaasatan qoliyahan security-ga war ururinta ee Sheekh Shariif intay meesha joogeen dadkii halkan wax soo gaarsiiyay in muddadaas kala guurka ah ay wax lumeen
intii hadda ay qolyahan cusub meesha qabteenna in sidii hore runtii iyo kulli ay Sheekh Shariif iyo groupkiisi uga muuqatay inayn ugu dhaganayn ama ayan mudnaantii la rabay ayan siinaynin dawladdu ama kartidooduba ay inta ku egtay Soomaalida waxay tiraa hasha madayda isma yeesho marka inay iyaka inta kaga dhantayna waa laga yaabaa laakiin waxa cad in dhibaatadiina soo kordhay qaraxyadiina soo kordheen magaalada lafteeda inkastoo ciidan u soo banbaxay oo ciidamada ku soo duulaya ayaan weli sidaa noqon haddana in ku filan oo hubiyaasha magaalada lagu garaacay iyo miinooyinka la gelinayo iyo qaraxyada iyo intuba walwalkooda ay leeyihiin intuna de kulley marba cidii mas'uula yaa eedda u badanaysa qoliyaha uun hadda mas'uulka ku ana hawsha waxaad moodaa ugu yaraan inayn ku ammaanayn waayahay marka la eego caalamku dawladdan haatan ka jirta Soomaaliya aad bay u soo dhaweeyeen oo hagarbaxeen waxay u ballan qaadeen ama qaarkoodba ay siiyeen adduun dhaqaale oo wax lagu qabsan karo waxa soo dhiirigelina oo dawladihii ka horeeyay dawladdan ee kuwii ku meel gaarka ah aanay heli jirin fursadaha faraha badan leh maxaa keenay haddana in dawladdu weli ay dhutinayso socon laadahay ragaadsan tahay maxaa ka sii dawladda markaa dawladda markii hore ay meesha yimaadeenba hadda ma aha in la iska dhaliilayo markii horeba qolyaha kan uun hawsha gacanta ku hayay ama madaxweynaha ama prime ministerka ama wasiirka arrimaha gudaha wasiirka madaxtooyada team baa meesha tan gacanta ku hayay oo iyakuna hore isu soo bartay kalsoonina ku wada shaqaynayay teamkaasu team hore shuqul dawladeed u soo maray maba ahayn dad ugu yimi meesha intayn qabsanna wax dhisan oo bilmithaal shaqaalaha dawladda civil servants dee marba maamul baa yimaada madaxda uun siyaasiyiinta uun baa meesha ka baxa tiimkii laakiin shaqada gacanta ku hayay way ku hadhaan meesha Soomaaliya arrinteedu taa ma aha wax meesha loogu tegay oo dhisnaa ma uusan jirin wax khibrad la yaqaano oo runtii aan sahlanayna ay markiiba qolyahan maamulka hadda qabtay ay meesha keeneen nama ayan muuqan sidaa awgeed waxaad moodaa arrintii in ay sidii loo filayay ee arrinta ugu weyn dee haddii madaxtooyada lafteedii hubiya ku soo dhacayo waxaad moodaa gadaal in loo noqday waxaase calow sugan international community-gu inay maamulkan aad iyo aad u soo dhaweeyeen anagu intaan kulley uun ilaa lixdameeyadii shuqul dawladeed ama waaba ku dhex jiray ama war sugan baan ka hayay meel sida loo soo dhaweeyey madaxweynahan iyo maamulkan mar loo soo dhaweeyey ma ay jirto wuxuuna soo dhaweynta iyo albaabada loo furayo waa tallaabada ugu horeeya aad u baahan tahay wixii ka dambeeyaana waa mar walba weelkaad la timaadid iyo cidda meesha kaaga muuqatay hawshan qabanaysa si gaara oo si yaab leh yaa dawladda Mareykanku intii Hillary Clinton meesha ay ka tagin madaxweynuhu markuu halka yimi wafdigiisu si aan madaxweyne Soomaaliyeed loo soo dhaweyn muddo 2-3 casho gudahooda yaa runtii loo qabtay madaxweynuhu arkay Congress-ku arkay World Bank IMF-ta USAID meela 2-3 casho lagu joogo cid loo sameeyay anigu aan xusuusnahay Soomaaliya iskaba dhaafo ma ay jirto kaba waxaaba ka sii weyn dawladda Ingiriiska iyo prime ministerka dawladda Ingiriisku sidoo ugu harbaxay David Cameron ninka la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya Xasan ma uunaha shirarkii lagu qabtay meesha qaarkoodna uun arrimo guud oo Soomaaliyeed lagaga hadlayay qaarna lagaga hadlayay arrinta Somaliland iyo Soomaaliya waxa muuqata prime ministerka Ingiriisku inuu si prime minister dadka arrimaha Soomaalida uusan u dhaxgelin oo uusan isagu laftiisu noqon cidii hawsha qabanaysay hoggaanka ugu jiidaysay in loogu qabtay Japan waa ognahay dawladaha kan aynu dariska nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyo Igadna ciidamadooda meesha waaba joogaan anu markaa waxaan qabaa fursad aad u fiican bay dawladdu heshay haddana
waxaa iyana sugan in walaac yimi in madaxweynuhu shir u ahaa inuu ka qayb galo oo G8 ahaa in daqiiqadii ugu dambeysay la yidhi kama qayb galaysid kolley wuxuu iskama dhicin sababaa jirta maxay biyo diideen markaa wallaahi sida warka uu la sheegayo laba arrimoodba waxaan u malaynayaa nimankan waa inaga warhayaan inagu waxaan isnaa inaga Soomaaliyo xaafaduhu iska wada warhayaan laakiin iyaku warkay ururinayaan ee kadanaha ay leeyihiin iyaga inooga warhelis badan waxa uu kolley warka ugu culus u ahaa inay dareemeen madaxweynaha iyo shabaab inay gacan saar leeyihiin oo khaasatan arrimahan jubbooyinka ay gacan saar ka yeesheen kolley Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Europeansku arrimahaasna uun ma aha heblaaya warka soo sheegtay wax dhaba war sugan oo telefoonno lagu wada hadlayo niman xitaa shabaabka kamida oo iyaku say sheegayaan la shaqeeya oo wararka u soo tabiya kuwo xitaa iyaga dawladda Soomaalida ee maamulka ka tirsan oo insiders wararkaas oo kale la wadaaga yaa jira midda uun ugu weyn ee kolley intii Nairobi joogay madaxweynuhu uu shirka maalinta uu markii horena London batigay maalinimadii dambe ay ahayd in dalka magaalada Ireland North Ireland ku taal in la tago in la yiri maya shirka ma tigisid sababta ugu weyn ay ahayd dareenka arrinta nabadgelyada iyo arrinta shabaab iyo dhowr wuxuu isbiirsaday nimankan miday sugayaan waxa weeye waxbaanu idin la qabanaynaa afar faataxoon idin soo dirmayna waxaan jecelahay wax idin la qabano waxaanu idin la qabanayno laakiin waa inaan idin ka aragnaa idinkoo la gola imanaya shaqaalihiin ficilkeedii tii hadii laga waayo markaa waa lagu dhaliilayaa siyaalaha hadda loo ordayo loo tafaxaydnaa oo lalahaa Soomaaliyan wax la qabanaynaa waxaad moodaa in hadda laga maagayo in hadda dib looga guranayo waynu gudgali doonaa sidaad la socotid Ali Khaliif Galeyr dhawaan qaramadii midoobe waxay qoreen warbixin ku saabsan ama sheegaysa in musuqmaasuq baaxad leh ay dawladda Soomaaliya faraha kula jirto malaayiin dollar oo la isdaba mariyay ku dhawaad 17 milyan oo dollarka Mareykanka oo bangiga dhexe ee Soomaaliya lagala baxay lacagtaasi oo ay ku takrifaleen ama gacanta laga saaray ashxaas gaar ah sida warbixintaasi ay sheegayso ka baarlamaan ahaan oo kale haddii aad baarlamaanka tihiin Soomaalida arrintan ma daba gasheen ma u kuur gasheen waxse talaabo ah ma ka qaadeen uma ana kuurgala waa baarlamaan ahaan marka loo hadlo baarlamaan ahaan guddiyo baarlamaanku leeyahay khaasatan marka uu baarlamaanku xidhan yahay guddiyada fulinta arrimahaas oo shaqeeya oo dabagala intaan anigu ogahay wax hadda hawl bilaabantay oo socota oo arrinta loo kuurgalayo ma jirto calowse mid baa meesha taala oo yana ay tahay inaan laga maagin waxaad moodaa arrintii baarlamaanka iyo hogaankii baarlamaanka iyo madaxtooyadii inay isku milmeen in hawshu inay qaybsanaatay ahayd oo baarlamaankuna hawshiisa yeesho hay-adaha fulintuna iyo madaxtooyada iyo golaha marka alle way isku qasbeen waxa weeyaan marka hawshii u badneed waxa rangareynaya madaxtooyada sida tii baarlamaanku qaban lahayd shaqadii baarlamaanku qaban lahaa ayaa madaxtooyada laga qabanaya yaa ay u eg tahay hadda inay madaxtooyada u wareegtay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuna aad moodo inay hawlahoodii iyo shaqadoodii isku milmeen anu baarlamaankana waa ka tirsanahay xog ilaa heerna waa hayaa da'na waaba joogaa waana soo maray ilaa heer muddo gaaban inaan mas-uul ka ahaa xamar iyo prime ministerna iyaan ka ahaa calow mid baa iyadu iska jirta iyadaan waxbaba la hubin wixii meesha isa soo taagee maamulka gacanta ku qabtaaba horta marka ugu horeysaba eedeysanayaal baa laga dhigayaa musuq maasuq baa la sheegayaa waxaa la sheegayaa in ayan hawshii sidii la rabay ayan u qabanaynin arrintan hadda aad sheegaysa monitoring groupka iyo qolyahan qaramada midoobay iyo international community wararkana ay wadwadaane cidda hadda publish garaysa waa iyaga
meel haddaan dab ka shidnayn qiiq badan lagama arko meesha tan wararka waa la sheegayaa kolley wax la rumaysan karana waa u eg yihiin waana ilaa heer magaalada Nairobi arrimaha Soomaalida waa aad baa loogala socdaa warar aan xamar ku heli karin yaa Nairobi ay kolley aad moodaa inay ku sahlan tahay in laga helo midda uun muuqata lacagta uun monitoring groupka iyo ay tilmaameen iyo accountka bangiga dhexe iyo sidii loogu takarfalay arrimahaas arrin run ay u egyihiin dowladuna tallaabo ay ka qaadatay meesha cidna maxkamad lama keenin laakiin siday wax u tilmaami lahaayeen hadday waxaanu been yihiin u beenin lahaayeen anu ma maqal meesha hawshaas oo kale ay ahayd in laga qabtana waa baarlamaankay ahayd baarlamaanku haddii gudiyadiisu awoodda ay leeyihiin dee hawshan iyakaa baadhi lahaa iyakaa wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha bangiga dhexe iyo maamulka ciddii ka mida wasaaradda maaliyadda iyo meelaha joogta iyagaa ay ahayd inay u yeedhaan oo yidhahaan war su-aalahana la isweydiinayaa dhaleecayntanaana muuqato ayna inaka qura ahayne oo haddayba qolyaha international community waxay doonaanba inaga sheegaane haddaynu iyakii weli u baahannahay asay leeyihiin dee waa waraabo ari raacso wixii lagu aamini karaaba meeshii ma joogaan innagaa wax kula arrinta muhiimkii calow waxa weeye shaqadu haddayn kala qaybsanayn oo baarlamaankuna shaqadiisa lahayn xukuumadduna shaqadeeda lahayn madaxweynuhuna shaqadiisa u gaara lahayn waxalaala wax kala soconaya iyo mas-uulnimo meesha ka muuqanaysa waa adkaan doonta taa shaqada isku qasan baynu ka hadlaynaa waxaad moodaa baarlamaankii sida aad sheegtay in dhinaca madaxtooyada ay wada shaqayn leeyihiin mararka qaarkoodna laga maago in hawl sidaasoo kale usoo baxday oo musuqmaasuq ka hadlaysa in lagula dhici waayey in wasiiradii qaabilsanaa la horkeeno baarlamaanka oo ay arrintaasi ka hadlaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo kale haddaynu soo qaadano iyaga laftooda ma moodaa in shaqadii ay iskaga qasan tahay oo hawsha u badan tahay dhinaca madaxweynaha shaqada ra-iisul wasaaruhuna ay kooban tahay amaba aan u muuqan nin markaasi muuqan karayo loo arki karayo oo shaqadii loo igmaday gacanta ku haya tusaalahaan haddaan kuu soo qaado ra-iisul wasaaruhu socdaalladiisu ma dhaafaan marka iyo baydhabo weli kama qayb gelin shir caalamiya oo ballaaran oo dadka soomaalida ay ka dhex arki karayaan ra-iisul wasaarihii oo madasha fadhiya howlahaasi oo dhan waxay ku kooban yihin madaxweynaha taasi haddii aad ka baarlamaan ahaan eegtaan oo kale ma idin muuqataa in shaqadii weli isku qasan tahay shaqadii waa isku qasan tahay dastuurkuna waxbuu sheegayaa dastuurku si sugan wuxuu u leeyahay hawsha waaba taxantahay madaxweynuhu uu leeyahay waxay yihiinna waa la yaqaan waa xadidan yihin waa wax la tilmaami karo 1 2 3 oo tirsan hawsha fulinta ee qaranka waxaa leh council of ministers golaha wasiirada iyo prime minister ku ah guddoomiyihii golahaas si qayaxanba wuxuu u leeyahay executive powerska ama awoodda fulinta golahaasaa leh haddaba arrintanu arrin hadda ku kooban qoladan ma horta siday hadda tan u tahay waxayna soo maray ma aha waxaan u malaynayaa siyaalaha qaarkood waxay u egtay waqtiyadii dambe ee maxamed siyaad barre hay taladu nin keliya ku arrintu hadda siday u eg tahay waxaad moodaa awooddii executive powerska ee guddida arrimaha fulinta awooddii baarlamaanka awooddii maxaakimta intuba inay meel ku ururtay waxaana hadala aan iska tuuraya maahee waa sanadkii hadda ay wax jireen waxa laga arko waa waxa cidda xamar joogta cid maalmo dhaweyt waxaan maqlayay mudane cali maxamed geedi oo prime minister hore ahaan jiray oo dadkan uun siyaasadda soomaalida hadda 12 sane ugu dambeysay runtii ka dhex muuqda faalla uu ka bixinayay iyo uu arrimaha ka hadlayay aniga waxaan qabaa 100% inuu sax ahaa marka uu leeyahay dowladdu wixii loo egmaday kamay soo bixin
shaqadeedii may qabsan صح kalsoonidii dadka qaar badan baa ka luntay صح maamulada goboleedyada ay isku mashquulisay sida Jubbaland Naam, oo kale naam. hadalada caynkaas oo kale cali uu soo jeediyay cali geedi Ah. wax leedahay arrimo jira ay ahaayeen arrimo jira oo tan hore ee ay isku milantay arrimaha meesha sirtu ka qurmaysaa waxaan u malaynayaa maalin ka hor intuusan mudane xasan sheekh magacaabin prime ministerka yuu isagoo wada tashi samaynaya dhowr annako aan noo yeedhay wuxuu yidhi ilaa dhowr iyo 40 qof yaa danaynayay in prime minister loo magacaabo waxaan ka xushay oo aanan weli sheegin mudane saacid inaan prime minister ka dhigto sababtaan uga dhiganayaana waxay tahay waa ninkan intaa ugu aqoon badiyey aanu isugu macrufo badnayn waxaana uun rabaa inaan ka gudubno prime minister iyo madaxweyne howlaha isku qabsay marka laba isfar yaqaana oo wada shaqayn karaya hadday markaa isfar yaqaaniin oo wada shaqaynayaan laakiin hawshu qaybsanta ilaa xad waxba aan waa intaan rabnay taas waata laakiin haddayan arrintaasu dhicin anigu prime ministerka laftiisaan baa arrinta kala hadlay dad aad ay isugu dhow yihiin oo asxaabtiisa ah ama taageerayaashiisa ahna waa kala hadlay saacid isagaaba ku qanacsan oo le sidanay noogu badisaa oo noogu fiican tahay marka tee iyaku waxaynan annaka noo muuqan baa u muuqday dastuurkii wuxuu sheegayo iyo hawshan hadda hallowday ee lays eedayn doono waxaad dhaqso u maqli doontaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo wixii fashilmay faraha laysku fiiqi doono waayahay si fiican baan u fahmay taa dastuurku dhigaya tan meesha ka socotaba aynu qodobkaa ka gudubno professor galeyr waxaa jira iyaguna warar badan oo soo noqnoqda oo sheegaya in dastuurkii Soomaaliya ee qabyada ahaa lagu heshiiyay dhawaanta qodobo muhiim ah laga saaray ka xildhibaan ahaan ka baarlamaan ahaan cali ahaan adiga ma ku muuqataa in qodobo caynkaas laga saaray dastuurka haddiise ay jirto waa kuwii qodobada laga saaray alo arrintaasu warkeedu waa maqmaqlaynay kulley cidda ugu badan ee uun arrintaa daba joogtay raad raacaysana wuxuu ahaa mudane cabdiraxmaan faroole madaxweynaha puntland faroolena wuxuu ka mid ahaa 6 ama 7 qof ee saxaaxayaasha ahaa madaxweynihii markaas sheekh shariif intii road mapka ku jirtay haddaba inta road mapka isugu timaada dhowr shirna waa galeen garow 2 jir ay isugu tageen gaalkacyo isugu tageen nairobi isugu tageen addis ababa ay tageen marba waxyaalo ay ku heshiiyeen oo la saxeexay yaa jirtay oo marba isbedbedelayay constitutionkii ugu dambeeyey ee odayaashii 825 ahaa ay ratify gareeyeen ama ogolaadeen ansixiyeen makaasaa kaynu qaadanaynaa oo ah constitution marka laga hadlo makaasaa mise wuxuu noqonayaa meelo ay qolyahanu intay ku heshiiyeen iyo qodobo ay ku heshiiyeen inuu mudane cabdiraxmaan uu sheegayo waxyaalahaanu ku heshiinay baan dastuurka ku oolin mise kaa odayaashu ay ansixiyeen yuu leeyahay wax ka maqayaan anigu weli si buuxda ugama aanan bogan arrintaa waase jirtaa qodobo ay ka mid tahay magaalo madaxda oo kale oo aan u malaynayo hore inay ugu heshiiyeen in arrinta magaalo madaxda laysaga iman doono way jirtay in habka lagu shaqayn doonaa hab federaaliya uu noqdo haddaba ficilkii madaxweynaha waxaa laga yaabaa waxa uu diidayaa ama dhaliilayaa cabdiraxmaan faroole inay tahay odhaahda ama ficilka maamulka hadda jira uu ku kacayo yani habkii ma waafaqsanaa dhaqanka madaxweynaha iyo dhaqankii federaalka ee ku heshiin waaya in ilaa heer xantuna waxay tahay mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari labaduba dastuurkii markii dambe la ansixiyey odayaashu ansixiyeen labadooduba waa ka soo horjeedeen arrinta yaab kale jirtaana ciddii lagu doortay dastuurka iyadoo la isticmaalayana labadoodii bay noqotay waxa hadda walwalku uu ka jiraa war nimanku ma sidii horey uga soo horjeedeen dastuurka draft
qabiya qoraalka ma sidii bay haddana uga soo horjeedaan xasan siyaalo badan isagoo u hadlay waa maqluuleeyay maya waa u dhaaranay diyaar baanu u nahay waajib bay nagu tahay howlan lagu ogayo dastuuriya way inaanu taageerno haddana sida ay wax u dhacayaan iyo ficilka uu madaxweynuhu ku kacayo markhaatina ugu yahay jaallana ugu yahay maxamed sheekh cusmaan waxaad moodaa in meelaha qaarkood oo very very critical ama u ah muhim halbowla u ah dastuurkao dhanba inayan ku jecsanayn inayn rabin waayahay arrintaa dastuurka aynu ka gudubno cali khaliif dhowaan ama mar dhexdii waxaad aada soo saartay ama aad soo hordhigtay baarlamaanka soomaaliya mooshin ku saabsanaa kulan ama shir ay isugu yimaadeen soomaaliya iyo somalilan waddanka turkiga adigoo markaa codsanaya in la hor keeno oo la qeexo oo la biyaamiyo waxyaalaha lagu heshiiyey qodobada laga wada hadlay soomaaliya iyo somalilan waxay ku wada hadleen in si fiican loo fahmo oo la falanqeeyo arrintaa adiga iyo rag kaloo kugula jirayba waa la diiday waa maxay sababta ugu weyn ee arrintaasi looga soo horjeestay in laydin fasiro waxa lagu heshiiyey waxa laga wada hadlay alow arrimaha yaab kale weeye aan kolley dareemay in arrintu meel daran ay ka degayso waa run somaliland maamulkeeda iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ama wakhtigii sheekh shariif ha noqoto ama kan hadda uu madaxweynaha ka yahay mudane xasan sheekh maxamuude waxaan umaleya ilaa 4 shir yaa la galay oo 2 uu sheekh shariif kii london iyo kii dubay hadda shir hoosaad guddiye hoose iyo fardi iyo ay arkeen kama hadlayne miduu la ogyahay labadaasuna waa jireen haddana sheekh xasan sheekh intuu joogay 2 jeeraa la shiro labadaba dalka turkiga lagu shiray shirkii hore waa run midda aan sacadaynaya horta waxay tahay anuu 100% waa taageersanahay dowladdan dhexe iyo maamulka somaliland inay shiraan oo wax la isu jiido waa xaq 100%na waa taageersanahay arrimaha dhacaya laakiin waxaan anigu u arkaa arrimuhu kama uun dhexeeyo dad badan oo reer waqooyi ah oo midnimada soomaaliyeed raba beelo dhan iyo dad 5 beelood ee ugu waaweyn ee waqooyiga ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed xukuumadda way ku wada jiraan ee xamar joogta waxa yaab leh in intii waliba sheekh wadaagsan xasan meesha yimi nin uu mar dambe laga daba tuuray oo reer khaatuma amooye cid hawsha tanbudhiga u noqon lahayd oo midnimada Soomaalida raba oo reer waqooyi ah oo 5 beelood kay doonayaan ba ka yimaadeen oo waftigii madaxweynaha raacay ma jirin hadda macnuhuna ma aha yaan loo arkin nama mateli karaan nin ka yimi bil mithaal awdheeglo oo kale oo labadii shirba hadda tagay laakiin ninka awdheegla ka tagay ama magaalo kale ka tagay aqoon uu u leeyahay waxa ka dhaxeeya waqooyi iyo south waan nin uun aad moodo uun halambeedii Kenya laga sheegi jiray madaxweynuhu markuu uun shirarka aadayo 4-5 qof ay sheeko yaqaaniin warina kiciya halkaasaynu aadaynaa inay waagtahay haddii meeshii la tagayna communique meesha ka soo baxay af ingiriisi buu ku qornaa horta markii hore baa ahayd af ingiriisi in lagu doodo ama dooda af Soomaali baa ahayd wax lagu qorto arrintaas runtii ismaandhaafna waa keentay kala fogaashana walwalkii in la isu soo dhawaado maahe in lagu sii kala fogaado maxaa dhacay waxay u eg tahay oo international mediaduna u aragtay Somalilandna meel walba ka sheegtay in la ictiraafay inay 2 dowladood oo siman ay yihiin baarlamaanka motion kaanu keenay wuxuu ahaa ma ahayn yaa shir maxaa shirka loo tigi waxay ahayd halkan communique-gan ka soo baxay dowladdu maxay aaminsantahay inay caddayn ka bixiso oo baarlamaanka intay hor timaado ay sheegto sida Somaliland ay u buunbuuninayso uga hadlaysa miyaa
mise si ka duwan baa jirta mise si duwan oo iyaku ay wax arkeen baa jirta waay ayaan darada meesha ka dhacday runtii ninka wasiirka arrimaha gudaha oo ah ninkii wax saxaaxa guddidana ka mid ah Cabdiraxmaan Xuseen Guuleed iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Ismaan Jawaari Ismaan Jawaari iyo groupka iyagii motionka meesha geeyay iyo wafdigii raacay qolada Turkiga tagtay waa isunimi waa ka doodnay waxbaan bay isla soo dhaweynay waxaan isla soo dhaweynay waxay ahayd in dawladuna clarification ama caddayn ay bixiso baarlamaankuna qodobo guud oo wixii hadda ka dambeeya haddii shirarkaas oo kale la qabanayo ay yeelaan waa isla dhammaystirnay guddoomiyihii baarlamaanka wasiirkii arrimaha gudaha shantii gud raacay ee wafdigiisa ka mid ahaa 10 annagoo ah oo motionka meesha keenay intayadaasu taasaanu isku raacnay waxaa ku gacan saydhay oo diiday madaxweynaha waxa yaab leh Silaanya halkuu yimi Mareykanka ay sarkeen communique-ga State Department-ku uu soo saaray iyo wixii aanu ku talinayna waa identical waa isku mid waay hadana ka Mareykanku nooma soo laqamin ee anaga markay iyaga horeba warkan qabnay Xasan Sheekhna bishii May 18-keeda khudbad uu jeedinayay intii aanu sheegaynay yumbu ku celcelinayay waay hadduu halkiisa kuba joogo anagu uguma waraaneen laakiin intii ka dambeysayna wax aad isaga hor imanaya oo aan deganayn yuu sheegayaa meesha baarlamaankuna marnaba ma odhan hawshan annakaale mar walba dawladda hawshan leh laakiin baarlamaanku xaq wuxuu u leeyahay dawladda inuu haddayanba iyadu warka keenin oo baarlamaanka u keenin inay su'aalo weydiiyaan nacam waaya tiina diid oo Xasan isaga oo madaxweyne ah oo hawshiisa ay ahayd inuu wasiirka arrimaha gudaha kale u daayo ama gudoomiyaha baarlamaanka u daayo waxaan ku eedeynayo ka been sheegayna ma dhabtu saasay ahayd waa hagaag arrimaha dhinaca Soomaaliya guud ahaan iyo siyaasadeeda aan ka nasiyo cali khaliif galay waxaan kugu noqonayaa su'aal kale oo dhinaca ku tacalluqda gobolka Sool iyo Sanaag area Khaatumo waxaad ka mid ahayd odayaashii aasaasay ee dhidibada u aasay 3 sano ku dhawaad ka hor bishan ama bisha soo socotana wuxuu leeyahay shirweyne ballaaran oo dalka gudihiisa lagu qaban doono dib markaad u xisaabtantid dadka ku daawanaya aad fahamsiisid Khaatumo ma colaad bay soo kordhisay mise nabad maxaad oran kartaa baad idin qabsoomay runtii waxa noo qabsoomay oo reer Khaatumo u qabsoomay waxay xaq u leeyihiin in ay ka doodaan isaga yimaadaan ka midoobaan inay dacwadooda meel uga soo wada jeeso dacwadoodana maxay tahay anagu dad Soomaaliyaanu nahay way nabad baanu rabnaa annaka gudahayaga inaanu ku noolaano inaanu nabadna kula noolaano dadyowgan aanu dariskana geeska Afrikana aanu nabad corridorka Sool Sanaag iyo Cayn in badan baa dadka dhulka ku nool ilaa socda ismaamulka Soomaaliyeed iyo Itoobiya annaku taa koriyo hoos basaasaan u sheegnay waxa taa noo raaca annagu midnimada Soomaalida aan 100% taageersana wax badan oo badanna waaba nagaga lumeen haddana cidaanu marti uga nahay ma jirto cidaanu aanu oranayno maxaad noogu taageeri weydeenna de meelo badan waa ka nidhi laakiin intii awoodayaduna gaarsiiso annaku taasaanu rabnaa annaku calow midda aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dhul cidda aanu dariskanahay ee beesha Isaaq aan dhulay leeyahay annagu ku soconaa ma jirto dad reer guuraaye dhulka waa la wada dagaa khayraadka waa laga wada faa'iideystaa laakiin waa la is yaqaanaa dhulka sidii loo kala lahaana waa la yaqaan ciddan bariga naga xigtana dhul kama rabno siyaasad hadda aanu duulimaad ku nahay oo members of parliament dadka Khaatumo ay leeyihiin anagu kuwa iyagu baan raadsanaynaa kuwa Puntland ay leedahay xamarna uma raadsanayno garowana uma raadsanayno hadday colaadi soo korodhay su'aashu mid noo dhaxaysa maahe waxa weeye war dadkan xaq taqriir masiin xaq ma u leeyihiin dadkan dhulka ma degaano ma leeyihiin
dadku xaq ay u yeelan karaan war annakaa ismaamulayna annakaa xaq u leh inay dadka iyagu tashadaan waxaana ku leeyahay hadday been tahay arrintaa adigu dabagal cid beel meel degta oo Soomaaliyeed oo say beeshaas u midaysan tahay u midaysan ma jirto beeshaas waxay leedahay 12 isin 12koodii isim waa wada socdaan iyaka golaha ugu sareeya ah maamulkooda ay leeyihiin yar waa ismada reer Khaatumo waa reer Khaatumo cidda ah mindhay waa laga fiican yahay in qabiil farwaaweyn loogu dhigay cidda Khaatumo qabiil kale oo Soomaaliyeed beel kale oo Soomaaliyeed oo saa isu haysta Hargeysa ma joogo Garowana ma joogo haddii ay tahay waxa kano waxaan maqalaa ciddu iyagan heshiisayn war ciddu heshiis waa tahay ninka kule rag baa jooga Hargeysa oo golaha wasiirada ku jira waa idinkeed matalaya oo ana leh sumada brandkaas Khaatumo ama Soomaaliya sanaagii aanan ka socda kuwa ka socda meesha la yiraahdo Garowana waa jiraan hadda calaamad baan kuugu daraya kuwa golaha wasiirada ismaamulka Garowe Jigjigana way jiraan heerarka ugu sareeya oo xukuumadda Djibouti-na way jiraan dad u dhashay dhulka dadku qofku isagoo fardiya waa shaqaysan karaa yuu tagi karaa iska daas halkan aan joognay magaalada Minneapolis yuu qof han siyaasadeed leh yaqaanana sida uu ugu guuleysto halkan uu ka raadsan karaa waayahay arintuna de haddii saa loo xisaabtamayo Soomaaliya dhan wayna xisaabtu qabataa laakiin farbay taagan calow Khaatumo intii la aasaasay muddada 3 sanadood ku dhawaad ka imka ay jirtaan ku sheegay haddii dib aad wax u eegtid idaacadaha iyo wararka warbaahinta waxa ku jirtay dhawaan xudun in la qabsaday oo Soomaaliland maamulkeedu uu tagay halka ama ciidamada geeyaan wax rabaan bahagiyaan Khaatumo intay jirtay dhulka iyo deegaanka marka laga eego Soomaaliland maamulkeedu miyuu sii fiday mise Khaatumo intay jirtay meel bay ku hagsay dib u noqday inta ay biyaan ma horta su'aashan aad weydiinaysaa waa su'aal xaq weeye xudun waa magaalo ay degaan dadka waa magaalo Sool ka tirsan ciidamo Somaliland xudun ma helaas caanood lafteedii yay haystaan ma xaq bay ku joogaan mise xaq darro horta aan is weydiino ma dafirayno hadda ma oranayno ma joogaan ma waa joogaan oo waliba dhibaato aan dadka dhulka ku nool taariikhda soo marin bay ku hayaan intii la deganaa dhul la wada deganaa isticmaar Ingiriis baa la soo arkay dawlado civilian qabtay Maxamed Siyaad Barraa qabtay intii ka meedana fowdo badan baa wadan ka dhacday dhibaatada intii bishii October 15 2007 ay ciidamadaas Somaliland iyo maamulkeedu dadka ay ku hayaan taariikhda nama soo marin inta haween iyo caruur iyo maato xabsiyada Laascaanood iyo Burco iyo Mandheero joogana waligeena nama soo marin inta maalin walba lagu dilo magaalada Laascaanood ee targetedka ay dilayaan ee waliba kaba sii daranay leeyihiin baa iyaga iska dilay ama shabaab baa dilay shabaabna ma dilin dhulbahantana ma dilin maamulkaas Siilaanyo yaa ka mas'uula ma oo haysa cadeemo marka waxyaalaha soo dhan cadeemo sugan baa loo hayaa waxaana uu kugu dari lahaa calow way jiraan xudun way tageen laakiin tagista nimankan niman ciidan infantry oo ballaaran oo military occupation arla ku qabsada ma aha annakoo Khaatumo ana runtii intii nabad iyo wada hadal wax lagu gaari lahaa yaa annaka mabda noo ahay waxa haddaba muuqata Siilaanyana wuxuu yiraahdaa gogol baan dhigay maalmo dhaweydeen maalintii iidana waxaanba ka maqlayay nin magaalada Fiqi Fuliye intuu tagay yiri ana technical dhowr haysta niman geel jiro oo meel geeloodu daaqayana farta ku fiiqo yiri 500 ee wiila halka ka muuqdaan ciidamada Somaliland bay ku darsameen Siilaanya wuxuu ku damaashaaday oo durbaanka ugu tumanay nabadii aan u fidinay walaalahayana waa ogolaadeen ciidamadayaduna guul bay gaadheen generaal waa wada dalacsi Siilaanya
hadduu saa caqligiisu ninka anigu inaan si fiican isu naqaano saaxiib gaarana aanu ahaan jirnay wey sida uu hadda u dhaqmayana waxaan u malaynayaa wuxuunbuu taariikhda geli nin aan dadkiisa shacbigiisa iyo dadka ay wada dhasheen ay dariska yihiin dhibaato iyo dhiig daata iyo qaxooti iyo burbur waxaan ahayn aanu haynin hadday xudun qabsadeenna dee annaba xudun waa noogu taallaa meel haddaad leedahay horta 3 sano maba jirin khaatumo waxaa la abaabulay dhisantay waa 2 sano iyo xoogaa may waa January 12 2012 waa sanadii badh haddii xitaa xisaab cadaawo la leeyahay sanadkii badh maxaa dadka u soo kordhiseen dadka mid baan u soo kordhin khaatuma cidda u dhalata cunuga 5 jirka iyo 6 jirka ah ama ha jooga New Zealand ama ha jooga Minneapolis ama ha jooga Edmonton waxa dhab ah inay meel uga soo wada jeedaan dadkana xitaa in magaalada joogta Laascaanood iyo waa la xasuuqay waa la laayay bahdalad badan baa lagu hayaa waxa xaqiiqdu ay tahay in dabkaas iyo fikirka iyo meesha lagu hiranayay tilmaameen inay dab ay damin karaan inuusan noqon doonin taasay achieve kareen adigoo raaliga ah Cali Khaliif su'aal si xoogaa xasaasi ah ayaan rabaa inaan ku weydiiyo hayeeshe waxaan doonayaa dad badan oo ku daawanaya aad u bayaamisid reer Khaatumo haddii aan ku magacaabo reer Sool oo kale haddaan ku idhaahdo Laascaanood reer Sool baa haysta reer Sool baana ku dagaalamaya oo waa xoraynina idinka dagaalamaya idinka meesha haysta haddaan ku idhaahdo maxay jawaabteedu waxay noqonaysaa waa kiisaska wahaltaa calow waxaan jecelahay nin caan ahoo bahdan maxay ahayd warbaahinta ka tirsanna waadahay adiga oo kale iyo inta ku dhageysanaysaba cidda tidhaahda Laascaanood waxaa haysta Sool dhulbahantaa haysta waa hadalaan waxba ka jirin waxaa dhici karta مثلا wadanka Faransiiska oo kale Second World War-kii wadanada ugu fac weyn baa weeye dalka Faransiisku Jarmalku uu ku soo duulay Vichy regime ama iyay sameeyeen oo wadanka u dhiseen laano markaa waa laga taagroonaaday oo ciidamadii Jarmalka ka taagroonaaday oo Paris jooga haddaba ciddii odhanaysa maxay Faransiisku waaga Vichy administration u ogolaadeen waa su'aal taala laakiin haddana dabkii Faransiiska iyo wacyigoodii iyo isdaafacoodii iyo communitydkii waxay xuquuq u leeyihiin 3 sano Jarmalku intaasuu meesha joogay wax la yidhaaho Khaatumo afraad way jirtaa farduguna inagu haddaan Soomaalinahay hebel soo maaha dee hebel waa ina hebel waa reer hebel waa reer buu ka siiyaa afraad hebel iyo hebel aan u tirin karno waa shakhsiyaadkaasu ummadan lama odhan karo laanno shakhsiyaadka aan sheegaya kuwa dadka ugu xiga yaa lagu dilayaa Laascaanood yaa u soo banbaxaya arday iyakoo ah haween iyakoo ah oo hadda xabsiyada Laascaanood iyo Mandheeraba ku xidhan cid ka timi Buuhoodle ama xudun ka timi dadka ama Talax ka timi dadka dhibaatada ugu badan ee gaaraysa waa dadkii magaalada deganaa waana lagu kala badan yahay magaalada dadka la tilmaamayana haddii la odhanayo waaba kuwii deegaanka ay dhab waa afraad kamida oo waa la qirayaa ina hebel iyo waa la odhan karaa yaa xoogaa technique ah meesha ku haysta ciidamada tan Somaliland kamida waa run waxaan dafirayna ma aha laakiin waan naqaanaa waxa yihiina waa ognahay wax sal la odhanayo horta reer Khaatumo Sool iyo Sanaag ma sharci gooniya la rabaa in lagu dhaqo lagula xisaabtamo mise wax Soomaalinimo iyo ibnaadnimo iyo adduunka dhaxay hadii lagu maamulayo anaga waxaan qabnaa wax weyna waa noo suurto galeen waxyaalana waa noo harsan yihiin waxaan qabaa oo lagu guuleystay in meel looga soo wada jeesto arinta shirka hadda Talax lagu qabanayana arqalad waa maqlayna xitaa kuwa aanu markii hore maamulka loo tilmaamay oo maamulka Khaatumo aha yaa hadda xagal daacaya oo la leeyahay waxayba rabaan inay la shaqeystaan labada maamul dhinacyada naga xiga isku dhamaasho la waa ilaahum baa kaamil ay moogta laakiin waxa u hakanaya
kuwa iyo ciddii kale ku dadaashay inay hakisana ma ay suurtagelayso ma jirto waxaa jirta iminka maamulka Puntland oo kale xilligan waxa ay sameynayaan baarlamaan cusub oo kii hore lagu bedelo xubno baarlamaan xubnaha baarlamaanka waxa lagu beesgareeyay dabcan qabaa'il sida meesha ka shaqeynaysa oo kale marka qabaa'ilka waxa laga yaabaa iminka beesha ka socota Sool iyo Sanaag oo kale isimadooda sidaad ay sheegtay waxa waa uliya diirkeed waa dad midaysan oo xilligan la joogo mowqifkoodu isku mid yahay haddana dhawaan waxaad arki doontaa maamulka Puntland oo sheegi doona inta uga soo qayb gashay baarlamaanka Puntland gashay ee ka socota Sool oo kale maxaad leedahay isimada ayaa loo adeegsan karaa haddii inta loo tago la yiraahdo dadkeena xubno idin noqda anigu waxaan hayaa oo iyagoo telefoonka ku wada jirana ay lahaayeen oo odhaha midaysan ka lahaayeen iyadoo qorana la hayaa isim Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dhashaa inuusan u magacaabi doonin waraaq cidna siin doonin inay baarlamaanka Puntland ku aadaan hadda ogobay taa nagama maqnaa horena waa u dhici jirtay arrin uguba ma aha caaqil meel taagan oo aan caaqilnimadiisaba lahu aanba jirin in la yidhaaho ama waa chief caaqil ama haddaaba lagu caana shubay waa isim cusub oo cidda ku soo biiray hadday kuwaas wax u saxeexaan yaa wax kula ma waxa wax kula dadkii oo ku odhanaya dee annaka waxaasu nama matilaan mise waxa wax kula ka ku raadsanaya legitimacy iyo dowladnimo iyo waxaanu nahay maamul ummadda ka soo dhex baxay hadday arrintaasu noqoto annagu say iyo ku yeelaanna ma yeelayno waatay say iyo ku yeelaan taa hadday radul ficli uun tahay annagu ilaa iminkana waa ka iska dhaarinay inayna annaku aana ku samayn laakiin taariikhdaa qori ninka maamulka ee odhanaya 12 isim ee waraaqda qoran haysta qortay ee sidii markii ay talix la isugu yimina qortay xeer in ninna kaligiisa uusan ku tala bixi karin jabsin ka mida ciddana aan kaliga talada ku bixi karayn waa xeerka u yaala oo qoran haddana ay cusboonaysiin ay leeyihiin annagii maamul samaysanayna oo baarlamaan samaysanayna dee baarlamaan kale ma dhisi karno kaas xamar dee waaba la wadayahay laakiin maamul muxuu ahaa ama Puntland ama Somaliland ama xitaa maakhir iyakun baanu badarisnahay odayaashaas waxay isku raaceen oo kor iyo hoosba u yidhaaheen inayn arrintaa fulin doonin oo yeeli doonin haddiiba ay timaado cidi inay ku kacdana dee waa sida aan sheegay nin caaqil ah ama caaqil ku sheega laanna waxaan ogeyn kuwo midaan xitaa caaqil ahayn Puntland inuu ugu dhignaa inuu inta isimada reerkaasu leeyahay oo dhan uga awood badnaa laanno iyagu muqtadiyan ku yahay ina faroolu muqtadiyan ku yahay waaye xiriirka cali khaliifo shakhsiyan adiga iyo ina faroolo ka Cabdiraxmaan Faroole ama Puntland oo kale ma isku fiicantiin mise xiriirkiinu ma wanaagsana wallahi anaka ina faroole horena way sunnaqeen shirar dhowrana waaba isku aragnay waxaan umaleeyaa ina faroole markii ugu horeysay waxaan umaleeyaa bishii November 1990 qoliyo Sidam ka tirsanaa markaa oo Albany New York la keenay inay jaamacad ku dhamaystaan oo 55 ah buu kamid ahaa nimanaanu saaxiib ahayn oo markaa manifesta xamar ka jirtay nimankaas waraaqa iyo cajalada iyo wax igu soo dhiibay maxamed abshir kan general maxamed abshir ee magaaladan inay la joogo yaa igu soo dhiibay ina faroolano markaasaan isbarnaan hore aqoon usul ahayn ma markii dambana shirkii cartaan isugu nimi wuu ka cadhooday shirka carto isagu waaba ka baxay waan joogay lafteeda waa joogtay shirka carto wuu ka baxay ka bacdi xamarna waa isugu nimi xamarna waa ka tegay garow uu aaday maamulka Puntland iyo intaas ku maqnaa markuu campaignkiisa doorashada soo aadayay again bishii December 12 November 2007 wuxuu igu soo maray anoo Dubai markaa joogo Cabdiraxmaan ilaa heer ninaan isnaqaano ahaa wuxuu igu yiri warniyo meeshaasaan u socdaay idis Sool iyo Sanaag iyo Cayn 17 vote bay meesha ku leeyihiin idis waranigu 17ka awood aan ku leeyahay ma ay taalo laakiin haddaad rabto bal war xoogaa fiican inaan odayaasha isimada kaa gaarsiiyo
waan kaa gaadhsiin aniga iyo ina faroole waxaana dhex yaala wax personala ma aha waa arrin qadiyad siyaasadeed baana dhex taalla isaguna maamul puntland la yidhaaho xukumaa aniguna waxaan ka mid ahay dadka shacabka ah ee khaatumo ku abtirsada sidii markii horeba aan idhi garoowe iyo dhul aanu wada degno oo deris aanu ka nahayna waa jiraan xitaa xurgufo waa jiraan oo hawlo yaryar oon weligoodba soo dhammaanaynin laakiin aniga isaga waxaana dhex yaalla waxaa weeye anigu puntland dee ictiraafba igama rabto laakiin isagu ilaa uu khaatumo ictiraafo aniga isagu wax gaaraanu isugu sheegaynaa isku hor fadhiisanaynaa ma jirto ilaa isagu khaatumo uu ictiraafo adigu puntland ma ictiraafsa mise labadaasaad isla sugaysaa aniga puntland ictiraafba igama baahna qayb baanan ka noqonayne waxay noqonaysaa laba maamul oo deraysa oo ehela hadday isaga ugu muuqato laano hadda siday u muuqato labada iyaduba losers baana waxbaa nagaga maqan oo nagaga lumaya waxaan qabaa hadday laba maamul oo deraysa oo walaala ah oo labadooduba muqtadiyan ku ah xamar iyo federal systemka waa isu soo dhawaan karnaa intuuse leeyahay maya anaa khaatumo matela anaa khaatumo members of parliamentkooda xamar tegaya magacaabaya anaana hadda raba votka 17 ah inaan halkaygan ku shubto maya waaya aad baan u fahmay barnaamijkeena soo gabagabeeyey waraysigeena cali khaliif galeer waxaan ku siinayaa 30 second dardaaran iyo talo maxaad odhan lahayd dowladda uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud maxaad iyana shacabka ummadda Soomaaliyeed si guud aad u odhan lahayd mi 30 second soo anigu waxaan odhan lahaa xasan nasiib wanaag isagaa la doortay iyadoo xamar baana lagu doortay iyadoo oo ilaahir nabada dadkii doortay ee u ololeeyayna waan ka mid ahay waxaan qabaa oo anigu hadda odhan maayo sidaana kuugu lisnay noogumaad hambayna xitaa odhan maayo laakiin marba qof unbaa samanba Soomaalida waxaa tiraa awr baa dhaamiye markan isaga ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u ah siyaasada aan ku diidanahay sidii markii dhawaan sheegay waa jiraan laakiin inuu 4 sano dhamaysto in waxa dadku ay ku heshiiyeen ay hirgalaan oo xitaa hadduu hawl fiican qabto nin dhalinyaro kulli aniga iga yar weeye inuu doonto haddana in dib loo doorto xaq buu u yeelanayaa isagaana isu haya anigu waxaan odhan lahaa war colaadda tan hadda lagu arko xitaa haddii lagaa gardaran yahay waxa muuqata colaad inaad dabka aad shidaysid in siyaalo aan ina soo marin ilaa 1992 warkoodii iyo xasaasiyaadkii iyo miidiyadu waxay sheegayso nin madaxweyne ah in uu ama hormood ka noqdo romanskii hore waxay odhan jireen duqda Caesar uu qabo waa inaan xitaa la tuhmin islaanta waa inaan xitaa la tuhmin she has to be above suspicion madaxweyne Soomaaliyeed qofku hadduu yahay inuu isagu babinayo colaadatan waa inaan xitaa tuhumkaas u iman anigu isaga markaan waxaan odhan lahaa wareero dadkuna waa aad iyo aad bay ugu riyaaqeen in lagu doortay aad bay u rabaan in waxaan ay nabad ay nagu gaadho haddana doorasho kale taa ku soo dhawow taariikhdana waxay qoraysaa adaa isu haya isaga intaasaan odhan lahaa shacabka ummadda Soomaalida waxaan odhan lahaa meel aan sahlanayn bay arrinteenu hadda maraysaa sidaa aan xasan u sheegay dowlad baa hadda dhisan maamul baa dhisan waa dhaliilaynaa khalado ay ku kacayso oo dhabar jabina muuqda laakiin waxay mudan tahay ilaa heer ilaa aynu inta laysu yimaado laga tashado laga quusto in aan kalsoonidana lagala noqon wixii marba ay yeelaanee saxana lagu bogaadiyo wixii khalad ay sheegaanna dee inaan ifriiq lagu adimine in la sheego say wuxu jiraan ay u sheegaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku dhamaysan lahaa innagaa isu baahan Soomaaliya iyadoo dal ah yay dhaqaalaheeduna uusan fiicnayn haddana kaba sii xumaaday gaaladu waxay basket case tidhaaho ama meel aan khayr badan uusan ka soo socon bay u eg tahay tiyoo sii kala googoday faa'iido cidna uguma jirto
dalalka aynu dariska nahayna waxay hadda wadaan cidda inoo soo gurmatay waa iyaga ciidamada meesha jooga ee dhallinyaradooda ay meesha ku dhimanayaanna waa iyaga anigu hadda laakiin midda aan qabaa waxa weeye warhoy innaka isaga sokayna ciidamadaas haddaynu hadda iskuba tuhunno groupkaasi Ethiopia wadata kuwaana Kenya wata madaxweynuhu ciidan oo dhinac saaraya qolyo kalena taa innaka eedi haddii xitaa inoo soo gurmadeen aan ku mahadinno laakiin hawshan innaka leh qabyana waa halkeedii intaasana وهاجاك أدي أد بعض ما حسنت هي علي خليف قلير أد بنكو مهدني أو رئيس قاسي قيمة عليه أد نسيسي. Thank you very much. بعض ما حسنت. وهاجاك داوديال أنت هسي أيام كسو قبل يا ورئيسي عن لي شيء بروفيسور علي خليف قلير أو يسوي نوصل بعضي استوديوها مقالة مينيابوليس قبل كمين سوري ودنك مرايكنك. تانية كلنا كنا ضمبه وعلي عبد الحلالي ودمانتين بإذن الله اسمه دافنو.